أبارها روبلا أنت مسيبويك عذرة دلاعة وحلاها سوال أركادونك مركز حلياس وكله قابل الله شقيا كذا سياسيين تو ويسوي مادان تقالله هدي نقبصدان وكله سياسيين تو ويسوي مادان سياسة هالكاس على دقة وحاليا ومبدأ إنه سياسة كرهبنا إنه بدبادينه أدوك كله أخلاقيات كسياسة الدقة كده هالكام مقارين إنه حنلنا هي معارض مصيبة وطيالة وآدو هذه مصيبة إلى دعوة وصورنا صادم السيدان دعوتك بابان هي حكومة يعني أنت قال دعوة مدقبته إن أبارتو أنت دعوة أنت تكون قاتشة وأنتانو عروض قاتشة سنة لصوص صورة هذانا إن سعر برا كان ومدو أي بابا ولا قاتشوتو معارض المدن وفكريو أيالنا كاغسي دارن أدونك كلا ورا معارض كدولة واحد كوتشالن جريان إيه صوب بندقان قرشه هذا وهذا الدولة دو قرش صوب بندقان سامانت أنه سعر بركة وحاسن كقبانينا كو لابا صدق أفر معارض كانوا حلقة رواية صوب بندقان قرش كاو دقمة قلب كدولة مسعون كرو صوبتا كاسا كغفي عن كل خدتكو أي أركان لابا قرشه كلا دوان كي وجوحان أي وبجان إذا كان في عن أيها لقى هذا دولة الشقيقة دي قبسين ويدي ماشي هكذا حظه مركز على هذا وحباب أديقون هينين توتالي وحالين كارلا هنا ترى هذا وهذا حالنا يصير هذا وشيء وهذا كارهان مركز على هاي تاريخ مدو أو شلي مركي دت كان للدليل مركي لكوسني مركي لبابيني مركي قبل حبسية لكوسني مركي علماء لو عذابي تلاش أدوق أدلي وحول بو في عيه مركا waxaa muuqata in mucaaradka qaarkood xuquuqul insaanka xorriyadda dadka karaamada bini aadamka uu kala weyn yahay bariiska qaaliyoobay yaa muuqata sababta hadii bariiskii la soo casilayo ama dawladda meesha uga baxayso waxaa ka horeysay tacaddigii dadka lagu hayay ee qaybta ka ahayd garab taagneed maxaad adigu u soo hortaaganta ummadda maad cafis weydiisatid ummadda miyaad leedahay moral authority aad dadka ku soo hor istaagto oo iyadoo gabdhaha la kursanayo iyagoo ragga la gowracayo iyadoo ummadda hantideedii iyo waxeedii Tigray guranayaan aad ku garab taagneed inaad maanta ka hadasho siyaasadda soo ristaagto damiirkaas inaad yeelato miyay in la yidhaahdo marka mucaaradka masiiba quutayaasha haddana waxay rabaan inay uga faa'iideystaan qalalaasa siyaasadeed ay ku abuuraan bulsho u baahan dawladnimo iyo inay gaajada lagaga saaro nidaam gacmaha la isku qabsanayo waa inay ogaadaan inaan taa loo ogolaanin tallaabooyin adagna laga qaadi doono oo sharci iyo amniga lagu sugayo waxa inta ka sokeeya xukuumaddu waxay diyaar u tahay in guddiyo isku dhafa la sameeyo in la isu yimaado oday muxaarid muxaafid aqoonyahan ganacsade kulli sim arrinta sicir bararka oo laga yaabo inay dadkeena aad uga laafato haddaan qorshe lala iman qorshe meesan looga yeelan lahaa laakiin arrinta sicir bararka sida abaartii oo kale labadii bilood horreysay looga faa'iideysto kursi in lagu raadiyo xukun in lagu bedeliyo sax ma kursi 4 sano ka hor yaala meesha oo banaani ma jiro kursi 4 sano ka hor meesha yaala ma jiro dawladani maandid bay haysataa 4 sano markay dhamaysato cidii qorshaheeda la imanaysa la soo tartamaysa waa soo dhaweynayna inta ka hor laakiin mar haddii maandidka inta uu taagan yahay qalalaasan abuuraya oo kana sameynaya anoo ku gabanaya sicir barar lama aqbalayo taa in shacabku ogaadaan mas'uuliyiintu weeyaan haddii xukuumaddu ka soo bixi weydo mas'uuliyadda hadda ay sheegayso iyo istaraatiijiyadda halkan taala oo intay waqti u hesho ay xallin weydo maxaa dhacaya طبعا xukuumadda mas'uuliyaddeeda ay qaadato marka ay isweydiiso haddii ummadda badbaadin kar weyn oo badbaadin kar weyn fadhiga meesha loo fadhiyaa mishaar lagu qaata ma taana waday leedahay xildhibaanadii baa jooga odayaashii baa jooga waa laga wada hadli dadaalka xukuumaddu ay geysatay tabarta ay haysay iyo natiijada la isba badhigay oo qiimeyn lagu sameeyay iyadoo meel laba la gaarin laakiin qalaasa dhexiriyna ay wax soconaya ma